maanta waxaan isugu nimid xafladda furitaanka oo sida dastuurku uu qabo uu yahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu inoo furo hase yeeshee waxaan jecel yahay ummad yahay inaan ducaysano hor iyo horaan ilaahay inuu tawfiiqna waafajiyo waan ducaynayaa aamiinta igu kaalmeeya allahumma alif bayna quluubina واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا رب العالمين إلهي وربي ورحمانه وحنكابر إن بلد كان بلد آمن أنه قدكته ربي waxaan ka barin in quluubtayada iyo qalinkayaga iyo qoolkayaga iswaafaqo riladaada uu ku waafaqo rabbi oo raxmaan oo ummadayada inay midoodo iyo quluubtooda iyo calooshooda isu fiiwataan ka barina allahumma inti anaka naga marin habaawdan ilaahu soo toosi xaq tus oo raacidiisana ilaahu u fududee ilaahu anaka barnaamijkayaga iyo golahayaga tawfiiqdaada iyo riladaada nawaafaji ilaahu midnimada oo golaheen ilaahu noo adkee إله ربي الرحمن وقولك هنا سيدة أمد الدنتة كجرت نوافج يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مدن مدحوينه ما أنت حفظا فوريتانك ودستوريك أجندة ومتكرية وحويان إن لقيستو هذا الجيدين تا مدحوينها أو قرنك وجيدين أو نجحك ورمى حالة قرنك إيو أرمها كلا أو isaga uu naga xog warami doono saadaradeed ajandada waa mid kaliya waxaan kugu soo dhaweynayaa in aad gudato waajibkaaga dastuuriga ah oo aad inoo furto kalfadhiga labaad ee 2013 hadii aad ku reey madaxweyne ku soo dhawo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها برلمان كفدرالك الصومالية قدوميها محكمة السرة رئيس الوزراء حكومة الجمهورية فدرالك الصومالية حلبان نذا برلمان كفدرالك الجمهورية الصومالية دبلوماسيين تمرت شرف تكره مدن يا مرويين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa ilaahay baa mahad leh maanta inoo suurto geliyay inaan isugu nimaado furitaanka kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo ka soo noqday fasaxiisii ugu horeeyay taniya markii la aasaasay baarlamaanka aad iyo aad ayaa ilaahay aan uga mahad celinaynaa arintaas iyo inaan bilownay dhaqankii suubanaa ee lagu yaqiinay baarlamaannimada standardka u ahaa caalamka Soomaaliduna ay la horay u lahaan jirtay waxaan rabaa ugu horeyntii inaan ku bilaabo hadalkayga tacsi aan u dirayo dadkii Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta ahaa ee naga geeriyooday muddadii koobneed ee baarlamaanku fasaxa ku jiray oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano Soomaaliyeed oo sharaf badan culamaa u diin siyaasiyiin kale iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan intaba waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo ayagana naxariista janno Allah gaarsiiyo inta kadib waxaan bogaadin iyo maxaan ku iraahdaa hambalyo u soo dirayaa xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo muddadii koobneed oo ay jireen runtii muujiyay mas'uuliyaddii loo igmaday iyo sida wanaagsan oo ay uga soo baxeen waxaan leeyahay waa hambalyo waa bilow cusub waa dhaqankii cusbaa ee Soomaaliya in ay bilowdo ama dib ugu noqoto la rabay oo aad soo gaarsiiseen maanta meel la taaban karo baarlamaanku kalfadhigiisii hore ee 46 kulan uu ku sameeyay wuxuu runtii rukumo adag u dhigay dawlad dhisidda Soomaaliya oo ay ugu horeyso baarlamaanka oo noqday baarlamaan standard ah
oo baarlamaanada caalamka sida ay u jira sida ay u shaqeeyaan iyo aaliyaadkii ay ku shaqayn lahaayeenna meel dhigtay kalfadhigaas ugu horreeyo koowaad oo baarlamaanka muhiimaddaas ayuu lahaa wax ka beddelka dastuurka doorashadii guddoonka baarlamaanka doorashadii madaxweynaha ansixintii xukuumadda meelmarintii miisaaniyadda la xisaabtanka xukuumadda dib u eegista heshiisyada xukuumaddu gashay samaynta xeer hoosaadyada baarlamaanka dhismaha guddi hoosaadyada baarlamaanka iyo samaynta istaraatiijiyadda baarlamaanka iyo garidii fasaxii koowaad kadib xildhibaanada intaas ay ku soo guulaysteen ayaa maanta aan ka soo noqonnay waxaa xusid mudan oo aan rabaa iyadana inaan aad iyo aad baarlamaanka ugu bogaadiyo xildhibaanada ugu bogaadiyo sidii mas-uuliyaddu ay ku jirtay ee muddadii fasaxa ahayd ay qaar badan oo ayaga ka mida ugu bareereen inay khatar qaataan si ay u tagaan degaanadii ay ka soo jeedeen safaradaas lagu tegay degaanadii xildhibaanadu ay ka soo jeedeen ma khatar la'ayn ma riski la'ayn laakiin waxay ahayd tallaabo geesinimo leh oo loo bareeray meelihii ay tageenna runtii wax badan oo wanaagsan oo baarlamaanku mas-uuliyaddiisii ka mid ah xildhibaanka dowlad dhisidda soomaaliyana aasaas rasmi u ah ayay ka soo qabteen guud ahaan baarlamaanka waan ku hambalyaynaynaa gaar ahaan xildhibaanada ku guulaysta ama ay u fududaatay u suurto gashay in ay tagaan degaanadoodii waan garanaynaa in aanay aad suurtagal u wada ahayn sidii aan jeclayn ama aan rabnay inaan gaarno oo ah xildhibaan kasta in uu tago degaankiisii iyo tuuladiisii duruufaha dalka ka jira awgeed haddana waxay ahayd bilow barako waxayna daliil u tahay mar walba fursaddu intay saamaxdo hadba inuu baarlamaanka dhaqaaqayo waana muxuu ahay arrin leh bogaadinteeda iyo hambalyadeeda waan ku hambalyaynaynaa tallaabadaas dhinaca saxdaa baarlamaanka uu qaaday iyo dhaqankaas aan jiri jirin ee maanta bilowday oo aan rajaynayn inuu aasaas u noqdo dowlad dhisidda soomaaliya laga soo bilaabo maalintii bishii agosto waxaa socday barnaamij dowlad dhisid ah oo soomaaliya dowlad loogu dhisayo oo runtii ka duwan sidii awal ay wax soo ahaan jireen badanaa dowlad dhisiddaasi waxay ka dhacda dalka gudihiisa laga soo bilaabo shirarkii lagu soo gebagabaynayey muxuu ahay road mapkii lagu aasaasayeyna unugyadii ugu horreeyey ee dowlad dhisidda waxay ahayday tallaabo aad iyo aad u wanaagsan in bilowgaasi iyo aasaaskaasi dalka gudihiisa uu ka dhaco baarlamaanku ku samaysmo baarlamaankuna ku shaqeeyo xukuumadna ku sameeyo xukuumaddiina ay ku shaqo bilowday muddadaas kooban ee dowladda nidaamka dowlad dhisidda uu socday kumaynaan mashquulsanayn dhammaanteen dowlad dhisidda oo keliya ah dal dhisiddana waan ku mashquulsanayn oo qaybo kala duwan oo dalka ah nidaamkii dowlad dhisidda ayaa aad iyo aad uga hirgalay waxyaabo badan ayaa u suuroobay dowladda soomaaliya muddadaa kooban ee curdanka ay ahayd inay u qabsoomaan xurayntii dhul ballaaran oo ka mida dhul aanan awal gacanta dowladda ku jirin waxay ka mid tahay guulaha la gaaray sugidda amniga meelo badan oo ay maxaanku idhahdaa dowladdu hadda ay gaartay sidoo kale degaanadaas iyo maxaanku idhahda degmooyinkaas ama dhulkaas la xureeyey runtii dadka soomaalidoo muujiyeen sida ay dowladda u sugayeen iyo sida ay dowladnimada ay raalli uga yihiin waxay ahayd arrin dhiirigelin iyo maxaanku idhahda bogaadin mudan si gaar ah caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya oo xaaladdeedii wax badan ay iska beddeleen isbeddelkeedaasuna ilaa sanadkii horeba uu soo socday oo in badanoo ka midana runtii xukuumaddii hore iyo dowladdii hore iyo baarlamaankii horeba ay ammaan ku leeyihiin maantana runtii dowladda cusub ee soomaaliya iyo qaybaheeda kala duwan intay isugu tageen ay wax badan ay ka beddeleen waxa noo qabsoomay wakhtiga ay noogu qabsoomeen iyo duruufaha ay noogu qabsoomeen intaba marka la eego ma ahan wax caadi ah oo muxuu ahaay la qiyaasi karo horumarka dhinaca amniga ah runtii wax badan oo la taaban karo ayaa ka qabsoomay gaar ahaan caasimadda oo runtii amnigeedu uu aad iyo aad u dhib badnaa dib u habaynta ciidamada qalabka sida guud ahaan oo bilaabatay oo socoto xawli dheerna ku socota waa arrin ayadana bogaadin kale iyo mudan taxadiyaasha dalkeenna iyo dowladnimada soomaaliya haysto waxaa ka mid ah inaan dhinacna dagaal ku jirno
oo aan la dagaalamayna cadow runtii muujiyey ummaddan inuu cadow u yahay dhinaca kalena aan ku jirno dhismo dowladeed iyo qaybihii kala duwanaa ee dowladda dhismahooda khaasatan ciidamada oo dhinacna dagaal uga jira dhinaca kale waxa conventionalka caadiga ah sida caadiga waxay ahayd ciidamada in la dhiso waqti ay nabad tahay si ay u shaqeeyaan waqtiga ay dagaalka tahay annagu waxaan nahaysto waxay tahay inaan ciidamadii dhisno annagoo xaalad dagaalna ku jirna taxadigaasi dowlad caadi ah xataa mid ku adag waaye dowlad bilow ah oo hadda tallaabo qaadaysa amba qaadaysa iska daaya arrinta dib u heshiisiinta madaxda sare qaranka iyo gaarista maxaan ku rahay dadweynaha Soomaaliyeed madaxda sare qaranka tallaabooyin cadcad ayay ka qaadeen intii maadba duruuftu ay saamaxaysay ayaa hogaamiyaasha dalka ugu sarreeyay mas'uuliyiintu ay booqdeen gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah baaqiyo nabadeed iyo wadada la marayana ay u tilmaameen si cad dadweynaha Soomaaliyeed taas oo soo dhaweyn iyo ididiilo badan laga muujiyay muddadii koobneed ee ay jirnay waxaa dowladnimada iyo midnimada iyo gaarista qaybaha kala duwan ee dalka shaqooyinka laga qabto waxaa ka mid ah wada hadalkii bilowda sanadkii hore ee lala galay Somaliland oo aan runtii hore u sii wadnay oo maxaan ku raadayay isdhaafsi maxaa warqado qoraal ah iyo kulamo intaba ay dhaceen haddana ididiiladeeda iyo rajadeedu ay meel aad iyo aad u sanmarayso waxaa dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay u istaagto midaynta dalka Soomaaliya si loo helo dal Soomaaliyeed oo midaysan dadaalkaasi waa bilow laakiin ididiilo fiican iyo wuxuu muujinayaa wanaag badan dowladduna waxaa ka go'an hawshaasi geed dheer iyo geed gaaban intaba inay u korto oo lagu guulaysto in midnimadu ay xaqiiqo noqoto laakiin waxay nooga baahan tahay dulqaad waxay nooga baahan tahay dhiiranaan waxay nooga baahan tahay inaan qaadno tallaabooyin cadcad wax aanan heli jirin si aan u helno wax aanan sameyn jirin inaan sameeyno ayay nooga baahan tahay dowladda Soomaaliyana maanta arintaasi waxay ku tahay committed ama muxuu ahaay mas'uuliyadeeda ayay qaadatay in ay qaadato marar badan waxaad arki doontaan go'aano cadcad oo dowladda ama xukuumaddu ay gaartay si midnimadaas loo hiigsado oo dad badan ay ka duruufihii aan ku noolay si aan uga baxno kuwa kale u galno waxay u baahan tahay ku dhiiranaan iyo maxaan ku raadahay wax yaani mustaqbali ah oo aayaha daba loo aayo tallaabooyinkaas in la qaado in dadkeenu maanta oo aan gaarno labada hadaf ee ugu waaweyn oo ah Soomaaliya oo degan oo nabad ah iyo Soomaaliya oo mid ah inaan gaarnaahay waxay nooga baahan tahay dhiiranaan aan dhiirano aan ku talagalno inay noo soo socdaan go'aano xasaasi ah xoog badan u baahan in maxaan ku iraaday loo qaato dhiiranaan inta kadib walaalayaal waxaa maanta farxad weyn ah fursadan inaan helo oo aan aad u cadeeyo mowqifka dawladda Soomaaliyeed ee ku saabsan dawlad dhisidda waxaan rabaa in aan dhowr arrimood aan aad iyo aad ay noogu kala cadaadaan maxaa heshiis lagu yahay iyo maxaa heshiis in laga gaaro loo baahan yahay waxaa jiro waxyaabo aasaasi ah oo waaweyn oo aan la isku khilaafsanayn oo heshiis lagu yahay in dalkaani dawlad yeesho shaqayso heshiisaan ku nahay iskuma khilaafsanin ma jiro qof Soomaali oo maanta u taagan oo dawladnimo ma rabna dhahaya dalkaani inuu midoobo oo mid noqdo heshiisaan ku nahay iskuma khilaafsanin in midnimadii Soomaaliya dib loo yagleelo oo Soomaaliya oo mid alla helo dalkaani inuu noqdo dal sharcigu sareeyo oo haysto sareynta sharciga inta kale ee nolol ama hawlaana sharciga hoostiisa lagu dhaqan geliyana iskuma khilaafsanin ayadana waan isku raacsanahay jamhuuriyadda Soomaaliya ee cusub in ay federaal noqoto ayadana iskuma khilaafsanin waa isku raacsanahay horaan isku soo raacnay ciidan qaran oo midaysan oo muuqaal qaran leh oo danta qaranka u taagan inaan dhisannana iskuma khilaafsanin waan isku raacsanahay in si aan ciidankaas u dhisnaahi cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya 20 sano saarnayd in laga qaadana iskuma khilaafsanin
dariska iyo caalamka intiisa kale inaan nabad iyo wada noolaanshiyo iyo deganaanshiyo iyo diblomaasiyad qabow aan kula noolaano ama la lahaano leh iskuma khilaafsanin waa isku raacsannahay in dalkeenna dib u heshiisiin dhab ah ka dhacdo oo ummadda Soomaaliyeed qalbigeeda la isu xaaro oo ay kalsoonidii iyo isku tiirsanaantii ummaddu ay isku tiirsaneed inay dib u soo noqotana iskuma diidanin 20 sano oo dhibaato aan soo marnay xanuunka murugada leh ee ka dhashay inaan daaweyno oo aan boogaha dhayno oo aan hantida iyo xoolaha aan kala qaadanay ama aan ka cararnay ee aan duruufihii jiray ay noo saamixi waayeen inaan haysano in dib loogu celiyo gacmihii iyo shakhsiyaadkii xaqa u lahaa ee sharciga u lahaa iskuma diidanin iskumana khilaafsanin waana in ay dhacdaa ay sidaas u dhacdaa mas'alada marka maxay tahay maxaa loo baahan yahay inaan marka aan ka ballanno aan ka heshiino waxa loo baahan yahay waxaas aan soo sheego dhan sida loo sameeyo waayo waxa mas'alada noo taagan oo aan rabno inaan iska fahmo dawladnimaan rabnaa dawlad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa rabnaa sideen ku xaqiijinaynaa hadafkaas inaan gaarno wadada aan marayno meesha aan ka leexanayno midda aan muxuu ahay ku toosayno waxa aan qabanayno waa waxa u baahan inaan ayagana aan ka midowno taasi si aan uga midownana waxaan leenahay aasaaskii dawladnimadii ama meelihii iyo maxaan ku raada aaliyadii aan waxa uga midoobi lahayn waa noo dhisan yihiin waa noo yaalaan waxaan u baahannahay kaliya inaan dabaqno raacno isticmaalno muxuu ahay aaliyaadkaas si aan u xaqiijino hadafkaas kama dambeynta ah inaan gaarno sidoo kale midnimada dalka oo su'aal ka taagnayn laakiin waxay tahay sideen ku suurto gelinaynaa dalka inuu midoobo sideen ku suurto gelinaynaa midnimadaas inay noqoto mid aan haddana mar kala rimcan oo aan gadaal u noqonin laakiin waarta siday u noqon lahayd waa waxa shaqada noo taalo mustaqbalka ah oo inaan ka wada shaqeyno ka xaajoonno ka hadalno tanasulaad ka sameeyno adkaysiyo marka qaarkood loo baahan yahay aan ka sameeyno waa midaas sareynta sharciga qof walba cadaaladana uu rabaa sharciga inuu ku hoos noolaadana uu jecel yahay laakiin sidee si aad ugu hoos noolaano sharciga waa inaan qiimi bixinaa waa inaan ogolaanaa waxyaabo badan oo qaarkeen waqtigii sharci la'aanta aan haysanay ama aan helnay inay faraheena ka baxaan oo ka tanasulno waa inaan ogolaanaa si aan sharciga hoostiisa ugu noolaano oo aan u noqono ummad leh dawlad iyo nidaam sharci ah oo ay ku nool yihiin qiimaha aan bixinaynahay waa kaasa jamhuuriyadda Soomaaliya inay federaal noqoto sidoo kale waa lagu soo heshiiyey isfaham siyaasadeed ayaa laga soo gaaray dastuur ku salaysan arrintaas federalismka ayaa miiska inoo saaran oo leenahay dood kama taagna maanta qof dhahaysa dastuurkaana ma jiro wixii shalay lagu soo ballamayna ma jiraan annaga maanta wax cusub hadda bilaabeen meesheediina ma aha maalinteediina ma aha maanta maalinteedii waxay tahay wixii lagu soo heshiiyey inaan ilaalino wixii lagu soo heshiiyey inaan dhaqan gelinno waxaan u taaganahay waa intaa laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo aanay ku tiri kuteen naga noqonin shaqadaasi waxay u baahan tahay hawl dhab ah dalka si aan federaal uga dhignaahay waxay u baahan tahay hawl dheeri ah oo midda caadiga ka baxsan waa hawshaas midda qabashada naga baahan waxay tahay dhagaheena inaan ka owdanaa propagandada iyo dacaayada iyo waxa yaani aan sal la soo taabta aan lahayn waxa sal la soo taabta oo asaas leh waa dastuurka professionalka ama muxuu ahaay qabyada ah dhameystirka nooga baahan inoo yaal ee lagu soo heshiiyey waaye kaasina waxa asal u ah dalka in laga dhigo dal federaal ah oo systemka federalismka uu ka dhaqan galo
waddo kale oo looga leexdo furan maanta ma jirto gaar ahaan dawladda Soomaaliyeed ee maanta jirta mas'alada sideen ku gaaraynaa hadafkaas mar walba waa noo yaalaa dhiiranaanta waxaan nooga baahan waxay tahay inaan ku dhiirano federalismka inaan qaado dhaqan aan aqoon jirnay oo aan lahaan jirna ma aha waa wax cusub oo aan dooranay ku heshiina hadda inaan qaadano sida ugu fiican oo noogu shaqayn karo annaga ma aha mid meel hebel ka jiro soo minguuri inta keen mid meel hebel ka jirana soo minguuri inta keen maanta mujtamaceena xaaladda uu ku sugan yahay aan garanayna federalismka u shaqaynayo oo ku haboon waa inaan ka shaqaynaa ma garanayo anigu midka uu yahay ma garanayo baarlamaanka Soomaaliyeed waa tiir dhaxaadka mas'alooyinkaas xalkooda laga dhowrayo isaga la soo fiirinaya laana dastuurkaas sida farayo oo dhahayo baarlamaanku koow ha sameeyo laba ha sameeyo saddex ha sameeyo si uu federalismku u dhaqan galo dawladda anigu aan madaxweynaha ka ahayn xushmad iyo qadarin iyo ku xaq dhowrid iyo ka qaadasho baarlamaanka taladiisa ayay u taagan tahay waxyaabaha oo arinta federalismka ay naga rabto waxa kamid ah waqti inaan siino oo aanay noqonin ku soo bood inaanay noqonin waxa aan ka hadlaynaa waa mustaqbalka dalkan iyo dadkiisa waayaha soo socda yaanay dhayal nagu gelin yaanay nagu dhicin geedkii rooroor lagu koro rooroora looga soo degaa aan aad iyo aad u taxliilino waxaan go'aanka aan gaarnaahay mid birig dib u noqosho iyo maxaan ku raadaaye lama aha federal dalka inaan ka dhigno waqti ay nooga baahan tahay juhdi iyo dadaal dheeri ay nooga baahan tahay waxaan naga xigo inaan aragno Soomaaliya oo federal ah waa juhdigaas iyo dadaalkaas oon bixinno basta naga xigto iyo waqtigeeda ma ogiye wax kale oo naga xiga maanta oo na hortaagan ma jiraan intiina waan kari karnaa ay adihii dastuuriga oo shaqada qaban lahaa qaarna waa inoo sameeysan yihiin qaarna waa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u sameeyno si dhaqan galkaasi u socdo waxaan doonayaa maanta inay harto ku turikuteenka iyo dacaayada iyo federalism ma la rabaa mase ma la rabo mase ma la noqonayo يعني mana aha wax Xasan Sheekh oo choice u leeyahay ama khiyaar u leeyahay inuu dhaho dalku federaal noqonaya ima noqonayo walax anigu waxaan aaminsanahay awooddaas ma lihi dadka marka waxaas ka sheekaynayahay yaanan qofna institutionna kooxna yaanan siinin awood aanu sharcigu siinin madaxweynaha jamhuuriyadda awoodda uu sharcigu siiyey oo dastuurka uu siiyey waa inuu dalka ku hogaamiyaa waxa dastuurka ku qoran ee lagu soo heshiiyey wixii dhimanoo naga maqanna sidii aan ku heli lahayn oo go'aan uga gaari lahayn inaan fududayno waaye marka waxaan doonayaa walaalayaal mas'aladeenu dhabta waxay taallaa waxa wanaagsan aan rabno sidii aan u qaban lahayn dood kama taagna iskuma khilaafsanin waxa wanaagsan aan rabno waa noo calaamaysan yihiin intii suurtagal ah wixii naga dhimanna waan calaamaysanayna laakiin calaamadaas noo muuqata ee muxuu hadafka halka ka muuqda ka ifayo sidii aan ku gaari lahayn inaan garguurano inaan soconno inaan orodno inaan baabuur raacno inaan maxaan ku raadayay mid u tagno inaan gacmaha isqabsano wada jir u tagno dhammaan waa khiyaar annaga noo yaalo oo nalaga doonayo inaan runtii aan mas'uuliyaddeeda qaadano dawladdu waxay soo qaabaysay marka wadadii wax walba loo mari lahaa xukuumadda ayaa inay soo diyaariso soo taqdiidiso wixii sharci ay u baahan tahay wixii barnaamij ay u baahan tahay wixii istiraatiijiyada ee lagu gaaray ahdaaftaas oo dhan xukuumadda noogu xil saaran mana ka hor dhacaayo maalinteeda iyo waqtigeeda xukuumaddu ayada baarlamaanka ula imaan doonto baarlamaankuna mas'uuliyadiisa ugu horeysa waxay tahay xukuumadda inuu kala xisaabtamo waxa wadadii ma la muujiyay wadada la muujiyay wadadii saxdeed ma tahay waqtiga inaan ku gaarno la waxay waqtigii saxda ma yahay iyo wax badan oo kale su'aalaha oo baarlamaanku uu qabi karo waa oversight-ka waxa loo sameeyay xukuumadduna inay qabato na laga rabo laakiin waxaan walaalayaal aad iyo aad jecelahay inaan hoos uga xariiqo waxa aan dhisaynaa mar kale aan ku celiyo waa mustaqbalkii iyo aayihii ummad dhan
oo la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed 10 milyan oo Soomaali ah ayaan mustaqbalkooda qaabaynaynaa fadhigan iyo institutionkan macnaha iyo qiimaha uu leeyahay iyo mas'uuliyadda uu xambaarsan yahay culayskeedu waa intaas 100 sano ka bacdi Soomaaliya say u ekaanaysaa go'aanada aad gaaraysaan ayaa raad ku leh maanta haddii aan gaarno ama aan qaadno wado ama go'aano aan sax ku ahayn go'aanada siyaasadda la gaarahay ee ummadi ay gaartaa ama dawladda ay gaartaa raadkoodu waa raad aad iyo aad u fog waa waaraya aad iyo aad inaanay marka aan uga taxadirno oo aan u qaadanno waqtiga u baahan tahay aan u qaadanno juhdiga iyo dadaalka iyo dhafarka iyo soo jeedka u baahan tahay oo aan u qaadanno qatarta in loo bareero oo shakhsiga ama marka qaarkood ay u baahan tahay inaan u bareernaan u baahannahay laakiin waa arrin aan gaari karno oo aan xaqiijin karno xukuumaddu waxay mas'uul nooga tahay wadooyinkaas iyo wadiiqooyinkaas inay inta noo soo calaamayso idin keento ka doodaan isla qaadanno wadadaas markaas si wada jir ah aan u wada qaadno maanta meesha aan maanta taagannahay ilaa maalinta aan gaarayno Soomaaliya oo federaal ah oo federal states ay taagan yihiin oo ay shaqaynayaan oo khidmaadkii iyo adeegii ummadda ay u lahayd ay ayagu u qabanayaan dawladda dhexe tii loo lahayna ay ayaduna u qabanayso u marsiinayso ama kala shaqaynayso in meeshaas iyo maanta inta u dhaxayso wadada aan marayno waaye meesha muhiimadda ay jirtaa waxa substansiga ah oo muhiimka ah oo inaan ka doodno isku qabqabsano iskala raaracsano ku doodno u baahan waa waxaas marka dambana inaan ku heshiino oo aan meel isla dhigna ay tahay waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay waxa aan u baahannahay oo inaan darfaha isqabsanno oo aan habeenkii ku dhafarno oo aan muxuu ahay saacado dheeri ah u soo jeedno oo aan dhexdeenna lobby isaga samayno waa arrimahaas marka waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee sharafta badan in ay noo caddaato waxa aan meesha aan xooggeena iyo energy-geena iyo tamarteena meesha aan gelinayno iyo meesha aan u baahnayn inaan xoog badan aan iska gelino wadooyinkaas waaye dalkaani waxaan doonaynaa labadaas hadaf oo ugu dambaysa inaan gaarno Soomaaliya oo mid ah oo dabcan federaal ah iyo Soomaaliya oo nabad ah oo degan siyaasad ahaan degan amni ahaan degan dhaqaale ahaan degan waxa aan doonaynaa ugu dambeeyo waa waxaas wadadaas aan maraynahayna waa dhib badan tahay waana raf waana u diyaar garowno markaan mas'uuliyaddan soo doonanay ayaan u diyaar garownay inaan wadadaas dhibka badanna inaan marno inaan mar kale uun isxasuusinaan rabnaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed aad loogu mashquulo waxa kamid ah amniga iyo ciidamada amniga walaalayaal wadooyinkii hore ee aan hore u soo qaadnay inaan dib intaan ugu noqonno mar kale ku murgacanno sax ma aha waayo aragnimadii shalay aan soo marnay inaan dib ugu noqonno sax ma aha dhaqanka maleeshiyaadka iyo dhaqanka beelaynta ciidanka iyo amnigeena iyo dhaqanka kooxaynta waan soo marnay meesha ku dhamaanayna waan garanaynaa maanta marka la yiraahdo dhinaca amniga ah waxa noo furan waa hal wado oo kaliya noo furan ciidan amni oo qaran oo muuqaal qaran leh inaan dhisno waa mid noo furan ciidan dambe ciidan dambe oo la yeelan kara calaamooyinkaas oo ah in beel lagu calaameeyo la yiraahdo waa beeshaas iyo in koox lagu calaameeyo la yiraahdo waa kooxdaas maanta nama anfacayo
mas-uuliyadda marka dawladnimada aan mas-uulka ka wada nahay taxaddiga ama challenge-ga ama caqabadaha maanta hortaagan maxaa ka mid ah haddii aan nimaado dhul berrina oo bannaan oo aan maanta doonayno ama ay tahay waxaan loo yahay ciidan sidee u dhisnaa hadda aan soo qabanno aan keenno oo xagga aan ka keenno waxaan u malaynayaa shaqadeennu inay sahlanaan lahayd maanta waxaan u nimiday ciidan dhisan jooga dagaalamaya dhimanaya oo dhaawacmaya si ay dalkii ay badbaadada u siiyaan uga badbaadiyaan cadowgan Soomaaliya ay leedahay maanta taagan meel walbuu joogaa deegaan walbuu joogaa oo dagaalku uga jira koonfur maxaan ku raadaa bartama waqooyi meel walbuu joogaa ciidankaasi oo qoryaha sitaa oo la dagaalamaya cadowgii maanta waxay mudan yihiin inaan ku ixtiraamno muxuu ahay waxa ay sameynayaan iyo naftooda iyo dhiigooda ay bixinayaan ayagoon waliba haysanin wixii loo baahnaa ee lagu dagaalgeli lahaa laakiin waxaas aan sheegayno saxda ah way ka maqan yihiin deegaanadii ay ka tirsanaayeen ay u badan yihiin meesha ay joogaan iyo beelaha iyo Soomaalida deganay u badan yihiin inaan isu geeyno isku darno hoggaan midaysan u yeelno xuquuqdoodii raadino waan garanaynaa ciidan Soomaaliyeed sidoo u ekaan jiray aan ka dhigno waa mas'uuliyad annaga noo taal inaan sifooyin aan wanaagsanayn dadka qaarkiis sida ay yeelaan aan ku dhajino oo waa saas iyo waa koox hebel iyo waa reer hebel iyo waa maxaan ku raadaa magacyo aan habboonayn aan siino sax ma ah isaga oo saacadaas maanta aan wada fadhinaahay meel qorraxa oo cidla ah oo duur ah oo kuleyl ah taagan oo ordayo si uu danta dalkan u xaqiijiyo inay dalkan amni iyo nabad inuu helo waxa yaryaree naga dhiman ee aan annagu ay ahayd mas'uuliyaddeena inaan dhammaystirno inaan marka ciidanka horta ceeb uga dhignaahay sax ma ah waxa yaryar ee naga dhiman ee annagu mas'uuliyaddeena ay tahay inaan dhammaystirno hay-adaha dawladda inaan ku cambaarayno ama ku ceebayno sax ma ah dadka Soomaaliyeedna inay sidaa yeelaan dow ma ah waxbaa naga dhiman ma dhammaystirnin dhinac walbaan ka qabyanahay inaan dhammaystirnoon hore u soconaan doonaynaa laakiin hore u socodkaasi wuxuu noo suurtagelayaa oo keli ah waxa aan haysanno markaan u bogno horta aan jeclaysanno waxa hadda aan haysanno markaan jeclaysanno oo aan u bogno oo nala qurxoonaadaan oo nala fiicnaadaan oo aan u aqoonsanno nafteena inaan wax qabannay oon meeshan soo gaarnay laakiin meeshaan u soconno weli ay naga sii dhiman tahay markaasaa safarka inta noo dhimanna ay noo suurtageli laakiin wixii aan soo qabannay oon soo qurxinay markaan ciladayno magacyo xunxun u yeelno horay mu u soco karayno waxaan doonayaa maanta mas-uuliyadda dawladda oo dhanna anugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna anugu baaqayaa waa inaan aqoonsannaa oon qirnaa oon qaadannaa waxa noo qabsoomay aan ayaga weynaynaa oo aan bannaanka soo dhignaa laakiin ayaga intaan hoos marino waxa naga dhiman ama waxa ay tahay annagu mas'uuliyaddeena inay tahay inaan cilado u bedelno oo aan maxaan dib u waxayno ma doonayno ma naguma habboona waxaan leenahay aan hore u soconno ra'yigu waa noo wada furan yahay taladu waa naga dhaxaysaa mas'uuliyadda aan u kala sarrayno laakiin nin keligiis taladu ay meel ugu oodan tahay ma jiro mas'uuliyadda aan leenahay laakiin haddana mas'uuliyaddaasi waxa ay dhiibaysana aan isku aqoonsanno baarlamaanka Soomaaliyeed waxa la yiraahdo yani sovereignty-ga dalkani meesha uu yaallo oo uu ka yahay repository waa baarlamaanka marka mas'uuliyadda ugu weyn baarlamaanka ayay ku dhacaysaa mas'uuliyaddaas marka mid inaan xubin baarlamaan annagoo ah idaacadaha intaan tagla aan uga hadalno muxuu ahay dalalka dibadda aan gooni intaan ugu tagno aan kula xantanno ama aan intaan baxno meelo aan luuqyo intaan isla galno gaargaar ah nagama bixinayso waxa dhabtaa waxay tahay nagama bixinayso baarlamaanka isagaa iga og igana aqoon dheer nidaam iyo xeeran iyo sharci u leh xildhibaanku qadyad kastoo jirto ra'yina wuu ka qabi karaa sida ay la tahayna wuu soo bandhigi karaa
ayadoo loo aqoonsanayo sidii uu dareemayay inay ugu fiican tahay inay tahay qofna wax xun ma la soo shirtagayo qofkan markuu ra'yigiisa dhiibayana waa inaan u aqoonsanaa inuu yahay ra'yigaasi midkii uu arkay midkii uu fiicnay tahay laakiin mas'aladu waxay tahay ra'yiga iyo talada xaggee ku dhiibaynaa goormaan dhiibaynaa sidee u dhiibaynaa waxaan qabaa baarlamaanka Soomaaliyeed waa meesha oo waxaasoo dhan ay u yaalaan waa baarlamaanka dhexdiisa gudiyadiisa xeerarkiisa asoo isticmaalayo si kasta u adkaada madaxweyne raalli ahaw warkaas aad sheegtay Allah ka cafiyo uu dhihi karaa waan u furaya laakiin waa intee meeshu ka dhihi karo waa meeshan baarlamaanka gudihiisa idaacad inuu ka dhaho tago xildhibaan yaro iska mucaarad ah wuxuu raba waayayo yani way ku qiimi tiraysaa waanad ka weyn tahay waanad ka qiimi badan tahay waana ka mas'uuliyad weyn tahay intaas waxaan qabaa aan fahamno aanan aqbalno mas'uuliyaddeena iyo meesha ay saxda ku tahay oo aan aaminsanahay baarlamaanku inuu muujiyay aan track record u hayno inuu sidaa yeelay haddii shakhsiyaad sidaas ay jiraan aan isceshanno waan isceshan karnaa aan isceshanno wadada saxda ah dhaqanka saxda ah mar walba dhinaciisa aan xigsanno aad iyo aad ayaan mar kale arrintaasi aan hoosta uga xariiqaya waxaan doonayaa inaan dib ugu laabto muddadii fasaxa baarlamaanku uu ku jiray iyo muddadii ku dhaweeyay ka horeysay baarlamaanku mashquulka ahaa ee uu ku mashquulsanaa gabagabayntii muxuu ahay kalfadhigii koobaad waxyaabihii yani aad u waaweynaa ee noo qabsoomay annagu aad iyo aad ayaan u jirinay inaan wax ka qabanno 6 qodob ee maxaan ku raadayay istaraatiijiga dawlad ahaanta aan soo bandhignay oo aan dhahnay waa bilowga cusub meelaha aan ka bilaabeen aadan waxaan xoog badan u gelinay in aan cilaaqaadkeena caalamka aan wax ka bedelno sidoo ahaa adduunyada kalsoonideeda inaan wax ka bedelno adduunyadu sida ay noo arki jirtay si ka duwan inaan u aragno adduunyada cilaaqaadka aan la leenahay iyo doorka ay Soomaaliya ay ka leedahay inaan adduunyada intaan kala xaajoono aan isla garanno oo aanan isxaman annaguna aanan caalamka baleem garaynin aan xaman adduunyadii baaban waxba noo qabanayno nasaacideen aanan dhihin iyaguna meeshan muxuu ahay meel wax ka jiraan ma ahano meel la qaban kara aanay dhihin aan intaan isu tagno aan wada hadalno waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo waa soo taabanay waa soo aragnay waa ku soo qanacnay adduunyadu maanta inay diyaar u tahay Soomaaliya in ay wax la qabato waana la soo dhaweeyay waana la fariistay waana la dhageystay waana naloo sheegay wixii aan weydiisanay iyo mowqifka laga qabo oo dhammaantood positive oo sax ah boolku marka annaga xaggeenu yaala Soomaaliya soo jira Soomaali ma tiin waa idin taageereynaa waana idin taageersanahay dawlad inaad tihiin sharci ah ayaan idin aqoonsanahay idinka ayaanan dalka Soomaaliya idin kala macaamileynaa socda haddii aan socon weyna marka ceebta yaa iska leh eedasa yaa iska leh haddii aan ku mashquulno inaan iska raaraacsanno isqabqabsanno isxagxaganno oo aan muxuu ahaay olyo burshaato aan isku firdhino oo aan maxaan ku yiraahdaa iska daba cararno eedda yaa iska leh haddee ahlan wa sahlan annagu wixii aan idin qaban karnay iyo waxaan diyaarka idinla ahayn waa idin tusnay laakiin haddii gacmihii aad wax ku qabsan lahaydeen idinka aad iska jarteen waa boolka dhinaceenu banooniga dhinaceenu soo jira sida aan u laabno waxay ku xiran tahay waxa Soomaaliya u qabsoomayo Soomaaliya 22 sano oo dhibaato ka bacdi mushkiladda ay ku jirtahay kaligeed iska ma saari karto waxay u baahan tahay kaalmada caalamka ay u baahan tahay sidaasayna soo ahayd dhaqanka dawladnimada muxuu ahaa burburka kadib dawlad kasta oo burbur ku dhaco markay soo kabanayso waxay ku soo kabatay kaalmada adduunka annagu hal fariinaan adduunka gaarsiinay oo adduunyaduna ay aqbashay khaasatan dalalkii ilaa hadda aan soo booqanay ee reer galbeedka ahaa fariinta reer galbeedka aan gaarsiinay waxay ahayd Soomaaliya waxay taagan tahay Yurub iyo meeshay taagneed
1945 dagaalkii adduunka labaad markuu dhamaaday yurub meeshay taagneed burburkay taagneed dhibaataday taagneed yani barakaca iyo maxaan ku raadee qaxa iyo mushkilada mujtamaca haysatay meeshaasaan taaganahay oo ay noo dheer tahay laba dhib oo aan waagaas jirin yurub waagaas shabaabna ma haysanin burcadbadeedna ma haysan annaga labadaasaa noo dheer fariintaasi aad iyo aad ayaa loo dhegaystay fariin lagu qancay waaye waana midda keentay in la yidhaahdo berigaas yurub waxay isu qabatay iyo caalamkii aan yurub ahayn wixii yurub uu u qabtay yaan diyaar idinla nahay inaan idin qabanno yaanan marka fursaddaasi waa fursad qaali ahoo jirta yaanan daayicin yaanan waqtigeenna intiisa badan waqti badan ma haysano waqtiga yarkaan haysan intiisa badan aan ku bixinno fursadahaas jira sidii aan uga miro dhalin lahayn oo unaga faa'iidaysan lahayn laakiin dhexdeenna ayaynaan isku noqnoqonin aad iyo aad ayaan arrintaasina idinku bogaadinayaa idinkuna dhiirigelinayaa fariinta labaad waxay ahayday waddamada deriska nala ah taariikhdeennii waddamada deriska nala ah naga dhexaysay waa la wada garanayaa marmarka qaarkood taariikh dhib badan ayay ahayd marar badan taariikh colaad iyo dagaal ku salaysan ayay ahayd anugu ma qabo colaaddaas iyo dagaalkaas soomaaliya ka mas-uul ahayd oo mar walba keeni jirtay laakiin deris gobolkaan deganayn gobolka colaadda way ka wada jirtay daafo kala duwan annaguna qaybaan ka ahayn adduunyada maanta waddamada deriska ah oo soo marnay waxaan u soo marnay inaan u xaqiijinno oo aan u caddayno soomaaliyada maanta la dhisaya ee soo socota inaanay ahayn mid khatar ku ah deriska mid threat ama muxuu ahay tahdiid ku ah deriska laakiin ay tahay mid u diyaargaroobaysa inay qayb ka qaadato horumarinta gobolkan iyo deganaanshiyaha iyo nabadda gobolkan inay qaybteeda la timaado ay ka qaadato dalalka deriskaana ay ka rajaynayso intaasoo kale fariinta aan waddamada deriska u gudbinayna waa intaas si saas aan u gaarno soomaaliya maanta derisku wuxuu haystaa fursad hadafkaas qiimaha leh ee aan u sheegnay iyo fariintaasi ay nooga saacidi karaan wayna noo muujiyeen wayna noo ballan qaadeen ayaguna in ay soomaaliya kala shaqaynayaan una maxaan ku idhaahdaay ay garab istaagayaan marka siyaasaddeenna dibadda labadaas tiir ayaa ugu xoog badan ay ku taagan tahay labadubana wax badanaa ka qabsoomay dabcan wax badan oo kalena way dhiman yihiin laanna annaga dhammaaba muxuu ahay dowlad dhisidii ku soconno laakiin hoggaanka ugu sarreeya ee dalalka deriska ah ballanqaad cad oo aniguna aan ku qancay inuu run yahay sax yahay ayay ii qaadeen soomaaliya inay garab istaagayaan inay nabad noqoto mid noqoto deganaanto dowlad shaqayso oo qayb ka qaadata deganaanshiyaha iyo horumarka gobolkana ay ka soo baxdo intaas kadib waxaan si gaar ah rabaa inaan u soo qaado waddanka kenya waa dal deris nala ah dadka soomaaliyeedna ay muujiyeen in ay kalsooni badan ku qabaan markaan qaxaynay oo dhibaatadu ay dalkeenna ka dhacday meesha dadkeenna inta ugu badan ay u carareen oo ay nabad iyo amni bideen waxay ahayd kenya kuweenna dhaqaalaha haysta ee ganacsatada ah markay dalkeenna gudihiisa ay amni darrada jirta awgeed ay kari waayeen in ay ganacsi iyo maxaan ku idhaahdaay howlihii ay ku jireen ay ku samaystaan meesha ay u carareen oo dhaqaalahoodii ay la tageen oo ganacsigoodii ay ku samaysteen waxay ahayd kenya dowladda soomaaliya waxay daba socotaa aaminaadaas dadkeennu ay muujiyeen kalsoonidaas dadkeennu ay muujiyeen baan annaguna daba soconnaa kalsoonida iyo cilaaqaadka annaga iyo kenya naga dhexeeyo aadna wuu u sarreeyaa waanan ku kalsoonnahay dalka maraykanka iyo waddamada yurub waataan hore u sheegay ayagu mugdi kuma jiro mana qarsoon tallaabooyinka cadcad ee daliilka u ah in nala garab taagan yahayna waxaa ka mid ah inta shir ee soo socota ee soomaaliya daraaddeed iyo soomaaliya inay dhibka ka baxda awgeed loo abaabulayo oo u socda
oo aan muxuu ahay markaan geyno dhahno war waxaan rabnaa isku imaatin Soomaaliya waxaan loogu qabanayo in la sameeyo horeyba laga qaatay oo muxuu la dafay oo nalagula qancay shaqadeedina ay socoto bisha May 7deeda hadii alla yiraahdo shirka ugu horeeyo caalami ah oo Soomaaliya ku saabsan ayaa wuxuu ka dhacayaa magaalada London shirkaas dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya si wada jir ah ayay uga shaqeynayaan ajandihiisaan wadnaa guddi farsamo oo labada dal ka tirsanaa shaqadiisa ku jira waan daadihinaynaa waxaan diyaarinay inaan casuumadda invitationka la bixinayo si wada jir ah inaan u bixinno oon wada marti qaadno dadka ka soo qayb galayo dalalka iyo madaxda ka soo qayb galaysa shirkaas waxaan ka wada shaqeynaynaa shirkaasi sidii uu guuleysan lahaa effortiga iyo juhdiga iyo dadaalka aan ilaahay hadda wada galnayna meel aan ku qanacsanahay oo aan raalli ka nahay ayuu marayaa rajada inuu shirku guuleysto noqdana aad iyo aad ayay noogu sareysaa sidoo kale sanadka qaybtiisa dambe waxaa la qabanayaa shir kale oo nala qabanayaan ama anagu aan isla qabanayno midowga Yurub shirkaasi waxaa looga hadlayaa Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda 10 sano 15 20 sano soo socda Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa oo ay Soomaaliya u noqon lahayd dal caadi ah ayaa shirka looga hadlayaa 27 wadan ee midowga Yurub ku jirana waxay ku yihiin committed in ay shirkaasi yimaadaan in ay bixiyaan ra'yi iyo xoolo Soomaaliya dib loogu dhisay intaba waxa sidoo kale shirkaasi u furan yahay caalamka intiisa kale cid kasta oo doonaysa in ay Soomaaliya wax ku tarto shirkana way ka soo qayb gali kartaa wayna bixi kartaa laakiin aasaaska iyo shirku waa mid midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya ay wada qabanayaan laakiin albaabadiisu caalamka intiisa kale iyo cidii Soomaaliya wax la jecel oo dhan way u taagan yihiin fursadan maanta waxaan rabaa inaan marka aan uga faa'iideysto caalamka guud ahaan inaan u mahad celiyo soo dhaweynta dawlad dhisidda iyo dawladda Soomaaliya soo dhaweyntii lagu soo dhaweeyay caalamka inay dib u noqoto Soomaaliya maanta waxa u furan albaabada caalamka oo dhan hadii ay tahay bilateral dawlad hadii ay tahay iyo hadii ay tahay hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya horumarinta iyo maalgelinta iyo dib u dhiska dawladda Soomaaliya waxay wada xaajood kula jirtaa oo hawl adag ay kula jirtaa dadaal adag ugu jirtaa sidii ugu noqon lahayd hay'adaha caalamiga ah ee dib u dhiska horumarka ka shaqeeya bangiga adduunka laanta lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika bangiga islaamka sidii aan dib ugu noqon lahayn xubin firfircoon ugu noqon lahayn fursad aan ugu heli lahayn yani wadamadaasi muxuu ahay resourceska iyo waxtarka ay u leeyihiin dib u dhiska aad iyo aad ayaa ayadana noogu helayahay hawl badan ayaa bangiga caalamka iyo Soomaaliya isla qabteen tafaasiisheedu ay xukuumadda idinkaga warbixin doonto hawl cad ayaa bangiga Soomaaliya iyo bangiga horumarinta Afrika ay isla qabteen hay'adihii iyo maxaan ku raadayay institutionskii waxaas ka shaqeyn lahaana dardar iyo maxaan ku raadayay hawl dheeri ay xukuumaddu gelisay sidii ay u qabsoomi lahaayeen waa waxa aan leeyahay tafaasiisheeda anigu ma hayo maxaan ku raadayay adinka helayo xaqna u leh igana faradhuuban laakiin qanaaco xoog leh oo ilaa iyo maanta markaan dib u meelelecno wadadii aan soo marnay dhowrkii bilood aan jirnay dad badan ay runtii ay ku qiimeyn karaan wax lagu qaban karo dhowr bilood inay ka weyn tahay ayaan runtii noo qabsoomay taasina waxay noogu qabsoomeen wada jirkeena wada shaqeynteena iyo hal dhinac inaan isku la riixayno mushkiladda Soomaaliya taasay noogu qabsoomeen haddii aanay wada jirkaas iyo midnimadaas aanan lahayn runtii nooma qabsoomeen waxa noo dhimana nooma qabsoomayaan marka inaan wada jirkeena iyo iska warqabkeena aan xoojinaay on saaxiibo ahaana waa muhiim
marar badan waxaa laga sameeyaa propagandooyin madaxda dalka iyo baarlamaanka iyo xukuumadda intaba markaan leenahay saaxiibo inaan ahaano aniga gudoomiyaha baarlamaanka aan saaxiibo noqon oo prime ministerkii aniga aan saaxiibo noqon oo gudoomiyaha maxaan ku iraahdaa maxkamadda sare xildhibaanada wasiirada maxaan ku saaxiibaynaa ganacsi nagama dhaxeeyo kuma saaxiibeen isku beel ma ihno dan beelad kuma saaxiibeen waxa kaliya aan ku saaxiibaynaa waa danaha Soomaaliya waxaan ku saaxiibaynaa waa shuruucda noo taala iyo dastuurka noo yaalo waajibaadka uu nasaarayo iyo awoodaha uu nasiinayo intaasoo isku aqoonsano oo aan isku garab istaagno anigu kaligay waajibaadka dastuurka isaarayo ma fulin karo haddaanay iga saacidin xukuumadda baarlamaanka guddoonkiisa ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa haddaanay iga saacidin muxuu ahay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorku haddaanay iga saacidin waajibkayga inaan fuliyo keligay meel cidla intaan istaago ma fuli karo wax ka mid ahoo yar xataa ma samayn karo sidoo kale waxaa ah gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda gudoomiyaha maxkamadda sare golaha adeega garsoorka dhammaantood mid keligiis inta gooni u istaago shaqadiisa fushan kara ma jiro laana nidaamkii baaba isku keen xiraya waajibaadka anigu aan leeyahay gaar uma lihi laakiin wuxuu qayb yar ka yahay nidaamka iyo awoodda dawladnimada jirto qayb yar ka yahay qaybtayda keligeed marka inaan la cararo macna ma samaynayso waxna ii soo kordhin mayso guulna ma keenayso dawladnimada waxba ku soo kordhin mayso in ayadii yareedo lahay la ila qabsado la iga raaracsadana ayaduna sidoo kale waxba ma keenayso meeshaan xigmadda ku jirtaa marka waxay tahay koow horta inaan is-ictiraafno isu aqoonsanno inaan dhammaanteen aan haysanno qaybo yaryar oo ka mid ah gurigii aan dhisayno darishadii baa nin xagga la taagan yahay albaabkii baa nin la taagan yahay saqafkii baa nin la taagan yahay haddii nin walba goonidiisa ula taagnaado gurigii ma dhisayno haddii aan midkaasi midii uu lahay aniga inta ka tuuro oo dhulka ka geliyo ka caraysiyo oo ka hadlayana ilaa anigu keensan ma karee gurigii waa dhiman yahay ma dhismaayo waxay tahay midayda inaan xambaaro culayskeeda aan dusha saarto midda kale ee institutionka kale ee muxuu ahay ninka kale ee mas'uulka uu wadana inaan hadiiba aan tayda markaan dusha saarto aan ayadana la qaadi karo dhinac inaan kala qabto la qaado ama inuu qaado aan u fududeeyo aan kala kaalmeeyo waxa aan marka walaalayaal waxaas u leeyahay waxay tahay kor masawirka guud ee gurigaas aan dhisayna aan fiirino laakiin dirishadiisa waa cagaaran tahay iyo waa gaduudan tahay iyo albaabkiisu waa yar yahay ama waa weyn yahay iyo rinjigii la rabay ma aha aad yeeynaan ugu mashquulin laana guriga mar haddii aan dhisno dirishada waa ka bedeli karnaa albaabka waa ka bedeli karnaa rinjigana waa ka bedeli karnaa laakiin haddaaban noo dhisnayn maxaan rinjigii ka hadalnaa iyo dirishadii albaabkii waxa maanta noo taagana waa dhismihii gurigaas oo ah dawlad Soomaaliyeed oo dalka ka hana qaado ugu dambeyntii baarlamaanka sharafta leh ee federaalka ee Soomaaliya waxaan ku bogaadinayaa uguna hambalyaynayaa maanta inay soo gaareen kalfadhigii labaad oo runtii ah taariikh baarlamaanka Soomaaliya wuxuu samaynayaa taariikh intii uu jirana wuu soo sameeyey maantana waxay ka mid tahay beejajka cusub ee taariikhda ah ee baarlamaanka uu saa u rogayo waxaan leeyahay hambalyo aad ku hambalyeynaya waxaanan idin rajaynayaa inaad kalfadhigaana ku guulaysataan kalfadhiyada ka dambeeyana aad ku guulaysan doontaan haddii alla yiraahdo lianna waad muujiseen inaad ku guulaysan kartaan waxaan rabaa inaan idin ballan qaado wada shaqayn garab istaagid hawshiina aan idinku garab siiyo intii aniga iga khusayso ama awoodeydu ay la eg tahay inaan maxaan ku iraadayay wax kasta oo shaqadiinu inay fududaato qurxoonaato guulaysato keenayo oo aniga igu xiran waxaan rabaa inaan idin cadeeyo bannaanka iga yaalaan mugdi kuma jiraan shaki kuma jiraan mar kale hambalyo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantihiin
wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu